السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي ذا تيك توك ما توحنا وضع مقال كدوان مقال الذي أنا أقصد تبنشري برتو دشي سيدا أيام كو أوغان كريا إن السحرنا هاي أما سيدا أيام كو أوغان كريا قفك السحري ورت السحر كتد أنا آمسنين باشر قفك أنا السحر كآمسنين وأجو إن الله هاي آيات كمية آياتها إلهي آيات صوابين سيدا كو أوغان كري سيدا أنا كوشيجي إلا شوك مقال كان مقال كردلي إلا دمات كيسا واحد كو أوغان كريسا هبين كي مركز سيسا حنيسو عاقد أيات سوق هذا النساء أما كوب بيات كوسا شبه النساء سانو كله كدبنا أفقد كفر إسا دبولك كفر إسا واحد آخر النساء لبضن آيات إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مركز صد آخر سنة صدح شربت كنت فيسا عن دوفير إيو هو إسراع سن آيات كنت فيسا صدح شرب وحانت آخر النساء أغيران تضبط شر أغيران تضبا إلا صدح شهر ugu yaraan ilaa 7 jeer waanad ka badin karaysaa laakiin se ha ahaato tirooyinka isdheer 1 3 7 9 sidaas ha ahaato insha Allah kadib waad seex adoo weyse qaba ayaad aadaysaa freshkaaga oo aad seexanaysaa adigoo weyse qaba dhikrigii hurdadana akhriyay yani marka la seexanay dhikri baa la akhriyaa aayatul kursiga iyo waxyaabaha la midka ah ee soo raaca ayaad akhrinaysaa kadibna waad seexanaysaa Allah subhanahu jalla jalaaluhu wuxuu kugu tusayaa riyada qofkii ku sixray oo ama adiga oo dilaya ama sidoo ku tusaba ilaahay ayaa ku tusaya qofkii ku sixray insha Allah sidaas sameeya waxaan intaas raacinaya macnaha aayadahan macnaheedu waxa weeyaan waa horta suuratu an-naml ay ku jirtaa waa aayada 30 iyo 31 ama waa aayada 29 iyo 30 meelaha ka baray innahu min sulaymaan wa innahu bismillaahir rahmaanir rahiim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimiin macnaheedu waxa weeyaan innahu min sulaymaan jimanku way ka cabsan jireen aad ay uga cabsan jireen oo way u shaqayn jireen oo shaqaalihiisa ay kamid ahaayeen oo qaar baba xabis oo aakharuna muqarraniina fil asfad ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay quraanka inay qaar silsilado ugu xidhnaayeen dambiye gal oo jimamka qaarkoodna waxay u quusi jireen mataqaana badaha oo deemankii uga soo saari jireen macdanaha subhanallah sida awgeed waxaad leedahay innahu min sulaymaan ay ka socotaa fariintani wa innahu bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu ku bilaabayaa magaca ilaahay naxariista guudiya tagaarba naxariista maxaa ku sii xigta alla ta'alu alayya iska kii weyneynina wa'tuni muslimiin ina imaada idinkoo muslimiin ah markaad yaqiinsan tahay iyaga oo muslimiina oo dulaysan ay kugu iimaanayaan riyadada allana oo kugu tusaya inaad sixran tahay iyo qofka ku sixrayna halkaas hal ku dhashay ayaad ka ogaanaysaa fadlan waxa iga codsiya inaad muuqaalku dhalay aad u gudbinaysaan walaalihiina kale si ay uga faa'iideystaan arrintu dhashayna ay ma garanaysaa uga bogsadaan dadka aanan ogeyn